السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرمارke maxaad cali madaxa barnaamijka One Capital Network. Allahumma salli ala sayyidina Mohamed. asxaabta Bon New Zealand ayaynu eegaynaa wad moodo markaa inay fursad ku jirto. waxa weeyaan price-ka markaad eegto qaabku u socdo, waxa weeyaan price-ka hoos u socda, level-kaas hoos u jabsaday wax astaan ah markaa inaga hor imanaysa waynu kaga maagnaana ma jirto. waxaan filaynaa markaa inuu sicirku maxay uu hoos u sii socon doono. time frame ku 4 hour trend ku waxa weeyaan definition-kii saxda ahaa trend-ka inoo muuqda oo ah waxa weeyaan in price ku sameynayo markaa maxay fix sare oo markaa sidii jaranjaradii baa mid kale ka hooseyso iyo waxa weeyaan markaa waxa weeyaan trend hoos ah oo caadi ah inoo muuqda. waxaa inoo muuqda price-ku inuu level-ka jibiyay oo level-kaas support ah oo support hore u noqday inuu level-ka jibiyay price-ku markaa waxaan filaynaa inuu hoos sii socdo maadaama aanay jirin wax ka astaan ah oo markaa inagu lidi ah. waayahay masalan haddii 4 hour-kii 1 hour oo kale waxaad moodaa waa same price-ku hoos buu socday xoogaa halka yar isku yara noqnoqday waa caadi inuu bartaa ka noqdana uu ka socdana waa suurtagal. waxaa kaloo suurtagal ah in xoogaa intuu pullback yar sameeyo oo dabeedna uu markaa direction hoose qaato. 1 hour-kuna waa la mid. masalan allahumma salli ala Mohamed daily oo kale haddaynu tagno waxa weeyaan price-ku zoonaha resistance-ka ah ee price-ku ka soo noqday sida caadiga ah waxa muuqata inuu price-ku maxay inuu xagga hoose ku wajahan yahay inagoo wax weyn bedel oo sawirka markiiba waa inoo muuqda level-ka oo hore support u noqdayna inuu hoos jibiyay oo candle-ka ku xidhan ayuu daily-gu noo sheegaya. haddaynu kor xitaa uga sii socono masalan weekly-ga oo kala tagno waxaa inoo muuqda allahumma salli ala Mohamed week-oo kale waxaa inoo muuqda price-ka xagga waa la diiday inuu kor sii socdo. candleskaasna oo isku soo noqnoqdeen waxay noo tilmaamaysaa markaa in sicirku ay ku adkaatay inuu kor sii socdo. zone resistance-na waa la joogaa. waxa weeyaan allahumma salli ala Mohamed candle-ka ugu dambeeyayna inta yar waa pullback. candle-ka ugu dambeeyay bearish-ka ahna waa candle markaa inuu sheegaya in pressure uu jiro in sicirku hoos sii socon karo. masalan monthly oo kale eego soo yar dhaweeyo same laba bilood u dambeeyayba bearish buu ahaa. weekly-ga oo kale haddaan eegana waxa weeyaan allahumma salli ala Mohamed candle-kaas bearish-ka ah xooga badan wuxuu isku gadaamay candle-kii ka horreeyay markaa iyadoo weliba uu jiro maxay markaa pressure fara badan oo bearish uu inta uu si ay qolada bearish-ku ay hoos price-ka usoo keeneen ayay buyers-kii dib u caabiyeen. iska caabinta haddaynu ka shaki lahayn candle waa tan lagu kala adkaaday oo sellers-ka ay awood u yeesheen inay ku xidhaan price-ka bartii lagu dagaalamay range-kii lagu dagaalamay meel ka baxsan oo kasii hooseysa. candle-kan yar markaa pullback baynu filaynaa dabeedna inuu sicirka hoos socdo. anyway asxaabta Bon New Zealand fursad baa ku jirta bearish ah. waxa weeyaan fikradeenu waxa aynu filaynaa in ay Bon New Zealand toddobaadkan ay ku jirto fursad ah bearish
in hoos loo geli karo dabeedna waxaa inoo qorshe ah allahumma salli ala maxamed qorsheyna waxa weeyaan mar kasta oo price-ku uu pull back intuu sameeyo uu ina siiyo fursad odhanaysa hoos u gala ayaynu hoos u gelaynaa qof walba markaa istiraatiijiyadaada markaad hesho xaqaa'iq sheegaya inuu suuqu uu hoos socdo oo kaliya ayaad short u gelaysaa anigu levelka markuu jaray baan halkaa ka galay levelka markuu jibiyey already marka waxaan stop loss kana waxaan dhigay halkaa masalan allahumma salli ala maxamed iikaadi waayo take profit kana waxaan dhigay take profit kana zoonahaasoo mar resistant noqday zoonahaasoo markaa resistant noqday zoonahaasaan dhigay take profit targetka u horeeya xaggana waxaan dhigay stop loss marka waxa weeyaan stop loss kan waxa weeyaan 2.0731 take profit kan 1.9792 anyway waxba yaa intaas ku filan waxa weeyaan pound New Zealand directionkeedu waa bearish short ayaynu gelaynaa marka pre-kaas uu sicirka hoos u jabsaday baan anigu ku galay waxa weeyaan si aad u hesho risk reward wanaagsan waxaad sugtaa markasta uu price-ku pullback sameeyo deedna dusha ka soo qabso dusha laga soo qabsanaya intaas aan soo koobi lahaa cidii doonaysa in ay hesho dhammaan signalska oo aan galo iyo positionada aan ku jiro waxa ay account live ka furan kartaa muuqaalkan linkska hoos yaala brokerada hoos yaala sidoo kale waxaa ka xasuusinaa waxay cidda ku cusub markaa daawashada muuqaalkan YouTube channelka Home Capital Network subscribe saar sababta socota muuqaalada xiga isla markaana group baa jira Telegram-ka ah oo isna linkigiisu xagga hoose yaala oo Sharmaarke la shaqeysa magac daray halkaana signals free baad ka helaysaa iyo wixii su'aalaha oo lagaga jawaabo allahumma salli ala maxamed wixii comments faalla dad siraado muuqaalkan wuxuu baad ka dheeftay waxa weeye xagga hoose ayaad soo dhigi kartaa intaas ku soo koobi lahaa waa Sharmaarke maxaad cali wadin leh Ramadan Kareem والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.